magaca Eebbe yaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista. Ugu dambaystii mishinkii Kirishtaanka ahaa Soomaaliya waa laga saaray, kiniisaddiina waa la xiray markii Ingiriisku saadiyey haddii mishinku dalka ka guuro dagaalka iyo weerarradu waa damayaan. Hase ahaatee malahaasi waa beenoobay sida uu sheegayo arji uu qoray nin baadari ah oo Cadan fadhiyey 1911 isagoo dowladda Ingiriiska weydiisanaya in loo oggolaado inuu mar labaad magaalada Berbera kiniisad Kirishtaan ah ka furo, taana waa laga diiday. 1899 bartamihiisii ayaa Sayid Maxamed isku duba riday dad lagu qiyaasay ilaa 5,000 oo qof oo rag iyo dumar isugu jira, magaca daraawiisheedna wata, xoolo ku filan oo geel iyo fardo u badanna haysta, iyo 200 oo bunto. dadkaasina wuxuu u badnaa dadkii nugaal degi jiray. Arrimaha sayidka ay u taageereenna waxa ugu wacan 2 hal sayidka oo ka dhashay oo ay aqoon dheeraad ah u lahaayeen, dadkana diinta Islaamka iyo dariiqada saalixiya ugu baaqay. 2 iyagoo Ingiriiska wax xiriir ah ama heshiis ah aan la lahayn, xeebahana aan wax ganacsi ah la lahayn, iyo iyagoo reer baadiye ahaa. 1899 bishii Abriil ayaa Ingiriisku dhab u rumaystay in meeshaas dhaqdhaqaaq iyaga ka soo horjeedaa jiro, hase ahaatee waxaan la hubin dhaqdhaqaaqaasu inuu horay u socon doono iyo in kale. Goor gumaysigu damacsan yahay bal in rag ciidamada wardoonka ka tirsan halkaas loo diro si loo ogaado waxa meesha ka socda, ayaa daraawiishtii qoryo weyn ka guurtay oo waxay u kacday dhinacaas bari. geedigaasu wuxuu baabi'iyey cabsidii Ingiriisku ka qabay mar haddii wadaadkii iyo wuxuu watay baadiyaha bari u guureen, waxba tari maayaan. dariiqadii hadday qoryo weyn ka guurtay waxay degtay bali la yidhaahdo Dareemacaddo oo Buuhoodle dhanka waqooyi galbeed ka xiga. Gugaa waxaa loo bixiyey Tawasuley maxaa yeelay tawasulkii halku dheggiisu ahaa shay lilaahi. Sheekh Maxamed Saalax oo dariiqada saalixiya astaanta u ahaa ayaa aad u faafay. dadkii ciid iyo nugaal degganaa iyagoo aan hambayn cidina ka harin ayay daraawiish noqdeen. dad kaloo culimo u badan oo muhaajir ahina waa yimaadeen, warkoodiina kor buu u kacay, dadkuna waa jeclaaday. sayidku wuxuu ku caanbaxay aftahamo, deeq, waxqaradnimo iyo isagoo diinta Islaamka aqoon dheer u lahaa. markaasaa dadkii meel walba uga yimid si ay u dhegaystaan hadalladiisa murtida leh iyo waanadiisa macaan. taasi waxay keentay in la yidhaahdo ninku waa weli xagga Eebbe looga warramo. odayaal warkooda iyagu kalsoon yahay waxaa laga wariyey nin danley ah oo aan magaciisii la helin ayaa nin la odhan jiray Firin Qodax Faahiye oo hodan maal qabeen ahaa geela u raaci jiray, waxaana lagu heshiiyey inuu gugii la arkaba qaalin geel ah hawl u siiyo. hase ahaatee markuu dhowr geelii ilaalinayay ayuu hawlkiisii weydiistay. Firin wuxuu yidhi waxba ku siin maayo. taasna ninkii geel jirka ahaa waa ka xumaaday. dabadeedna wuxuu goostay mar haddii xaqiisii loo diiday inuu xoolaha Firin wax ka dhaco. wuxuuse ka yaabay in laga daba yimaado oo la dilo ama dadka uu dhex marayaa waxyeello u geystaan. markii dambe ayuu wuxuu sheeko ku maqlay iyadoo la leeyahay wadaadka soo baxay wuxuu jecel yahay fardaha oo ninkii faras u geeya wuxuu ka siistaa 10 geela. ninkii geela raaci jiray wuxuu goostay inuu faras Firin leeyahay la baxsado, dabadeedna wadaadkaa u geeyo oo geel ka siisto. taasina waa u suura gashay. habeenkii dambe ayuu faraskii la tegey. Firin Qodax waa raacdo galay oo wuxuu ninkii iyo faraskii ugu tegey dariiqadii. wuxuu arkay faraskiisii oo fardihii daraawiishta ku jira. wuxuu yidhi faraskan anaa layga soo dhacaye ha lay siiyo. ninkiina arrintu siday ahayd ayuu ka warramay. dabadeedna waxaa Firin sayidkii ku yidhi ninkanu xaq buu kuu sheeganayaaye ka garbax. ninku hadduu wax ii sheeganayo faranjiga haw tago oo hayga dacweeyo, anigase faraskayga ha lay siiyo. Firin baa yidhi. sayidkii wuxuu yidhi mar haddaad gar qaybtii muslinka diidday oo tan gaalka ogashahay, gaal baad tahay oo waad xujowday, sharciguna waa ku dilayaa. dabadeedna waa la dilay. ninkaasaana ugu horreeyey nin xaruntii daraawiishta ku dhinta. Garaad Calina wuxuu ahaa ninkii labaad. bilowgii dhaqdhaqaaqa
abbaaraha bishii Oktoobar 1899 ayaa daraawiishtii talo ku gaartay mar haddaynu damacsannahay inaynu diinta noolayno dariiqada saalixiyana faafinno gaaladana ku jihaadno dad iyo duunyo urursano waxaa lagama maarmaan ah inaynu garab iyo gaashaan ka helno degmooyinka galbeed Togdheer Burco Oodweyne iyo intii ka dhaxaysa degan dabadeedna hub iyo faras wixii markaa la heli karo inta la urursaday ayaa waxaa la guddoonsaday in galbeed shir loogu baxo sidaasna waxaa looga jeeday laba hal in gaalada la cabsi geliyo oo dhaqdhaqaaq la sameeyo labood aadane waa indho ku miyire in israacooda iyo wadajirkooda degmooyinka galbeed degan ku soo jiitaan baryahaasna waxaa daraawiishta dhexdeeda laga faafiyey ninkii aan ina raacin oo waxaynu wadno inala wadin waa gaalo caawin ee ha la xujeeyo xoolahana ha laga dhaco si arrintaas loo beeniyo darteed ayaa rag 5,000 oo nin lagu qiyaasay sayid maxamedna hor socdaa ay galbeed u ambabaxeen dabadeedna colkii wuxuu tegey Beer Burco iyo Oodweyne wuxuu dareemay mooye markii Beer la maraayay ayaa garaad Cali Garaad Maxamuud dib uga noqday dadkii arladaa deganaa dhiilaa gashay oo waxay moodeen in iyaga lagu soo duulay hase ahaatee waxa lagu yidhi waxaan ku jihaadaynaa gaalada iyo dadka raacsan dabadeedna waxay gubeen dariiqo qaadiriye ah oo shiikh deganayd Douglas Jardine wuxuu qoray waxaa beryaha la faafiyey in wadaadku berbera gubi doono mishinkana baabiin doono dabadeedna cabsi daraaddeed ayaa hindigii iyo carabtii maalqabeenka ahaa magaaladii ka qaxeen oo cadan u dhoofeen inkastoo gadaalkii ballan furfool xumi dhacay oo talo iyo arrinba lagu kala booday haddana markaas aad baa loogu dabaaldegay daraawiishta ujeeddadeeduna waxay ahayd dhoolla tusad iyo hanjabaad siday doonayeenna waa u meel martay liyagoo xoolo siyaaro loo siiyey oo geel iyo fardo u badan wata ayay dib u soo gadoomeen dayrta la odhan jiray tawasule gugeedii ayaa daraawiishtii xagga bari u sii guurtay warkoodiina aad buu dalka ugu baahay dadkiina ugu riyaaqay geedigaasna waxa ugu wacnaa laba hal sayid maxamed oo doonayay inuu reer abtigii dhex tago si uu garab iyo gaashaan iyo gargaarba uga helo iyo raggii la socday oo jiitay 2 ololaha daraawiishta oo dalka bariga degan lagu fidiyo laguna faafiyo dabadeedna dariiqadii waxay tagtay dhowglihii widwid iyo hareerihiisa dadkiina waa batay dabadeedna waxaa la gartay 3 hal in la abuuro niman magacooda la yidhaahdo qusuusi oo had iyo jeer sayidka la taliya in la sooco gaarhaya xarunta gudaheeda iyo sayidka ilaaliya qofkii la garan waayo ama loo maleeyo inuu daraawiish ka meel yahay ama doonaya inuu is-hortaago marka hore in la waaniyo oo lala taliyo hadduuse taladaas iyo waanadaas qaadan waayo in laga tashada ingiriisku wuxuu sheegay bishii Oktoobar 1899 inay Boosaaso u gudubtay dooni wadata calanka Faransiiska oo sida banaatiikh iyo saanad waxaa hubkaa iibsaday boqor Cismaan dabadeedna wuxuu u gudbiyey sayid maxamed haddaba haddaynu hadalkaas runtiisii baadi doono xaaji xasan aw faarax oo ka mid ahaa ragga ganacsatada waagaas taariikhda daraawiishtana aad ula socday wuxuu yidhi 2 nin oo la kala odhan jiray xaaji Cismaan Cali Guuleed iyo Cali Askar Maxamed Meecaad ayaa sayid maxamed u geeyey 20 buntuq oo waxay ka siisteen midkiiba 10 geel ah waxaa laga yaabaa in nimankaasi dabka ka keeneen Jabuuti waxaase hubaal ah in banaatiikhdu daraawiishta Boosaaso uga iman jirtay mar hore iyo mar dambeba waxaa habboon inaan idiin mahadnaqo like comment ka baxso share subscribe